بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وناكسن داوديال لماندين بكسو دوادا وركة تلفزيون كسومالي نيوز oo si toos ah idin khayman doona stuudiyaha uu ku leeyahay TV-ga magaalada caasimadda ee Muqdisho. maantana warka waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Ciidulus Maxamuud Iimaan. qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxaa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in dalka Talyaaniga uu u taagan yahay ka qayb qaadashada horumarinta dalka Soomaaliya xilli madaxweynaha iyo wafdi uu hogaaminayay booqasho ku tageen magaalada Milano. madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ayaa xaflad soo dhaweynaa waxaa loogu sameeyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud oo fadhi u ah maamulkaasi. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo in dhawaalahan booqasho ku joogay gobolka Gada ayaa dib ugu laabtay xarunta ku meel gaarka ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ayaa booqasho waxa uu ku tagay xiriyaha qaxootiga ee dadka Soomaalida ay ku jiraan ee magaalada Dadaab. qodobadaas iyo qodobo kale oo ay kamid tahay 60 jir noqday ardayda ka baxday dugsiyada sare ee Somaliland oo warbixin gaar ah aan uga hadlayno heerka waxbarashadiisa ayaad ku daawan doontaan warkayga.